السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له. hurdadu waxay ka mid tahay nimcooyinka ugu waaweyn ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoogu nimceeyay. sidaas oo ay tahayna waxa dhici karta in mararka qaarkood bini'aadamku u seexda si qaldan, taasoo qofka dhaxal siin karta waxtarkii uu ka heli lahaa hurdada inay isu beddesho dhibaato caafimaad darro. waxa haddaba arrin khatar lagu sheegay in qofku uu joogteeyo ama uu la qabsado inuu u seexdo beerka, waxaana si gaar ah looga digay in carruurtu ay la qabsadaan u seexashada beerka. waxaana jirta in rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu diiday u seexashada beerka. insax alxadiis. ilaahayna dariiqa saxda hayna waafajiyo dhammaanteen.